maamulka dekeda Berbera ayaa shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen xafiiskooda ku beeniyay warar bulshada dhexdeeda ku fiday oo ahaa in shirkadda Ballora lagu diidan yahay balse aanu ahayn sidaasi ayay yiraahdeen oo ahaa mid lagu dardargelinayo dhismaha imika laga wado dekeda Berbera sidii ay shaqaaluhu uga qayb qaadan lahaayeen geesta kalena waxay beeniyeen in la iibiyay xirada taardheer ay dekedu leedahay iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa kamid ah hadaladoodii qaladaad yar ka soo baxay warbaahinta iyo ujeedooyinka shirarkii maalin dheeda aan wadnay halkan ku qabanay waxa jirta shirkii maalintii dheed ballaadhaan shaqaalaha u qabanay wuxuu ahaa shir caadi ah aan ugu talagalay shaqada ka socota halkan banaanka kale ayaa jira arin kale waxa weeyaan arinka maalgelinta dekeda Berbera dawladdu iyo dekedahanba aan raadinayna waxa weeye isaguna waa arin qaran oo kale gaarkiisa u socda runtii waana barnaamij weyn weeyaan oo loogu talagalay in mujtamaca reer Soomaaliyeed looga faa'iideeyo taas waa taa maalintii dhoweyd hadallo meesha soo dhex galay oo ku saabsanaa kamaniga la yiraahdo Ballora waxa weeyaan anaku Ballora kama soo horjeedin mid kale oo iman doona kama soo horjeednay waxa weeyaan barnaamijkaasi barnaamij halkii yaala ma aha oo waxa weeyaan Ballora haddii dawladdu heshiis la gasho waa danta aynu sheegayna ka soo hadlay imka ayuu ka mid noqonayaa Ballorihii aan soo hadal qaadayna wuxuu ahaa guubaaba aan leenahay shaqaalaha shisheeye wuxuu doonayay inuu xilo qabto laakiin barnaamijka Ballora iyo dekeda Berbera guddi wasiira oo dawladda ah iyo oo maariyo xubin ku yahay ayaa gacanta ku haya waxaan diin cadeynayaa gacanta ay ku hayaan iyo ka fiirsashadooda ay raagayso in danta dekeda iyo danta shacabka reer Soomaaliland loo raajinayo wax cuntaba oo munaasib ah laga soo saarayo marka dawladdu isku raacdo iyo guddiga wasiirada ee maariyo ka mid yahay marka dambena madaxweyne Axmed Maxamed loo geynayo waxay isku raacaan baan anagu diyaar u nahay oo fulinayna Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Berbera.